بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي mahadle subxaana wa tacaala ilahay baa keligii mahadleh waxaan maanta idinku yeedhay waxa weeye waxaan ka adkeysan waayey waxyaalaha socdaan ka adkeysan waayey foosha xun leh ambaha ka socdaan websaytada ambaha ka socdaan facebooka amba twitterka marka hore waxaan taanidinaya horta shacabka reer somaliland sida quruxa badneed ee nabadgelyada lahayd ay u footeeyeen oo codeeyeen waxaan taanaya ciidamada nabadgelyada iyo kuwa militarigaba iyaguna nabadgelyadii sugay iyo ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo inugu dhameeyey codbixintii commissionagan isna taanideynaya in iyaguna ay shaqadu si fiican u qabsadeen waxa weeye ilaa intii codku la sameeyey codbixinta waxaa soo baxaya kelimado aada iyo aada u xun doorashadani aan u dareernay maalintii dhaweytay isniinta bis 16 iyo kambeynadanu gallay doodahaynu gallay maga weyn bay noo soo jeedeen waa jaraa'id badan oo adduunka ah oo kuwa waaweyn ayaa wax wanaagsan naga qoray oo dadkii inaan jirno oo ma jirta oo xaqoodii la duudsiyay haddana subxaana wa tacaala nool oo afrika ka muuqata kasoo murtire ayaa laynagu tilmaamay waxaa jira momentum fiican baa jira oo ay maanta damiirka international community ama bulshada caalamku ay aada iyo aada u dareensan yihiin inay dembi laynaga galay oona jecelna insha allahu tacaala doorashan ka bacdina inay noo midho dhali doonto oy noqon doonto wax laynagu qiimeeyo dalkani 27 sano xor ahaa ti adduunka o dhan aan waxba siinin bu haddana resilient aynu dad adkaysi noqonay dumaraadiyad ka caan noqotay doorashooyin ka caan noqday africa oo qaarkood 85 cod lagu kala helay waxyaalaha aynu soo saarnay ka mid tahay waxay ka mid tahay labada xusbi oo laga cod batay baarlamaankii inay haddana shir guddoonkii shir speakerkii qaateen speaker guddoomiyaa jira maaha waxa shir guddoon ciraha soo saaray guddoomiyii baarlamaanka aanu qaadanay waa waxyaalaha aan dhici kari jirin nabadgelyo inagu dhaceen haddana adduunku ay moodid inay naga jeedsadeen oo danahooda gaarka ay naga raaceen oo waddan aan jirin soomaaliya la yidhaho qabaa'ila dagaalo ka socdaan oo 22,000 oo ciidamo joogaan ay iska ictiraafeen kursigii somalilandii soomaaliya ee un-ta aynu geysanay dhinac qura la siiyey oo aynu tamar aynu ku ashkatoono waxayna usoo aan weynay inagoo isku habsanay waxaan doonay doorashada inay laga baxo saasaan doonaynay doorasho lagu tartamo platforms issues mustaqbal ixtiraaf ayaan hayn inagoo wanaagsan oo dadku kala foofay oo xaasaska faamiligu kala yihiin kala ocod ayaa laynoo keenay waxa la garxajisaya hodheelkaasaa lagu shir la yidhaaho ma aqaane meel halkaasoo la yidhaaho waxaa la yidhaha marooda jeex raggii 94kii dagaalka dheliyey halka yimi garxajisyadii 94kii dagaalka ay nagu soo celiyeen halkaas horta bahash ku qalocatay taas waxay abuurtay in qabiil loo footeeyo jeegaana samaysato la ficiltamo codkina wuxuu ku baxay qabiil buu ku baxay ishiisuma bixin reeraal isku seenay haddii reeruhu ficiltamaan oo codka lagu ficiltamo dee waa la kala badayo reer baa badinaya markaa in reer baa badiya laga xanaaqa dee maaha waxaa aada iyo aada uga xumahay wuxuu ku hadlayo nin kale axmed sheel waa taqaanaano markii carto waa ninkii ooye markii arrimaha soomaaliya laga hadlayay maantana wuxuu leeyahay habar yoonisay waan gumoominaa
haddaynu doorashada ogolaano horaan uga taliyey maalintii baan idhi polling station kasta 100 nin oo hubaysaa la dhigo xagee 1,600 oo 640 polling station habarweys xagee ka helaysaa 100 hor dhigto towtooda dadku ku cinayo horta waxaasaa soo kiciya weeye waxa website ku yaala nin la yidhaha nin Suudan ka soo qoray isna wuxuu leeyahay gaalada Hargeysa la laayo airport-ka la garaaco burburcadeedka hala xoojiyo si berber u xiranto dad waxaan ii sheegayaa iyo ragga ka yimi qurbajooga ka yimi ee doonaya inay inta caruur dibadda soo dhigteen inay Somaliland masaakiinta dadka reer Somaliland inay qasgeliyaan haloo diyaar ka raacaan suurta geli maysan leena haleenahay shacbiga reer Somaliland ee soo dadaalay maanta ka soo kabtay dagaalkii sokeeye ee 94kii dadka soo celiya wixii waxaan u sheegaynaa inaan maanta Somaliland dagaal ka dhicin xumaanta iyo ay dusha ka saaran tahay ku cildaysan doonaan waxa jirta rag baa intay soo taageen TV-ga presska ilaaheen waxa la soo qortay buug beenbeena oo lagu footay bay forgery baa la soo sameeyay waxay ahayd markay ka baxeen media in la soo qabtay hadday yihiin forgeryna la keeno cidii keentay forgery soo sameysay buugta codbixinta soo sameysay hadda nek laga qaatay commissioner la ogaado cidda bixisay intay saa yidhaaheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacay dadka mudaharaad dhigay dad baa ku dhintay ilaa maantana dibadda joogaan waxaan arrinta ogaatay inuu ahaa buug soo haray oo buugga codbixiyas ka soo haray oo gobolka saaxil ahaa waliba deegaanka taageera ciro ah in la soo qabtaa weey raggii press conference bixiyay ee dhimashada maanta keenay ee dadka maanta dhintay ka mas'uulka ah ee beenta faafiyay in la soo qabtaa weey 240 sanduuq oo hore loo tilmaamay oo loo jiriyay ayay yiraahdeen wadeen nagu celiya iyagoo nagala tashan labadii xusbe kale commissionku ayuu ogolaaday ilaa hadda 6 mid baa haro mid qor oo qaar laga helay ma jiro hal qaanad mid laga helay ma jiro laba maalmood dib u dhacday magaranaysaa in codbixintii iyo in result kala sheego waxaan arkaynaa halka in jireec weyn ka muuqan tahay uu ka muujiyay in marka taqaanay nek koow in soo qabtaan buugi markay ogaadeen laga xaday kii sitayna soo qabtaan kii u dhiibanay inay helaan wadan aan sharci ku shaqeynin oo sulx oo soconaya xirtajab wadan noqon maayo waxaan leenahay natiijadu way soo dhowdahay kursi qof oo fadhiisan lahaa nina laguma talagelin inuu keligii helo dadka rabshada laga dayan leena masaakiinta 22 maalmood aan ku dul warwareeginay campaign ku xun ku wadnay aan shaqaysan aan iskuul tagin rabshad kale oo baahnaan Soomaaliya waxaan leenahay dawladda maanta joogta ee bishu harsantayna waa inuu sharci shaqeeyo sharcigu inuu shaqeeyo rag ka soo bixaya ergaaban waxaan leenahay Soomaaliya waxa ay yeeli kartaa Soomaaliya ka u baahan idaga qaran u baahan إذا كان دكتي شقينين وضد إذين دمانين طيارة إذين من ما أنت عد وبعد قرن أو قبان عرق هوا مجرد سمعنا عندنا كبر برميس سيداس سناق لان إياه ودين لأننا مصر ما يسميان إذا كان حمانتا كياني قبيلك كياني كحيتيا كياني مونستر باسكو أبورتين دي أتكيستا إذا كان شيئا سميه علينا هاي ادي هاي شخص بقانا دور شادنا
waana tale la isugu yimaada barbaraarnay lama ogola dalkan wuxuu u baahan yahay in wada jir looga wada taliyo horumarkiisa laga tashado sharciyada la adkeeyo ixtiraafkiisi loo laga sameeyo shaqo si loo abuura loo sameeyo wixii hore laga baxo aan dowladnimo ahayn qaska ahayn literally ma ahayn dowladnimo waxaan ku noolay qodooyinka siidhiga noo hayn waxaan leenahay weligiinba naqaska isku noqon jiray Soomaaliya hadii walistaan waanu adkaysan doonaa kaayaga waalana waanu qaban doonaa dhibaatayga naga hor joogtay waan dhamaysan doonaa waxba adeer fooxa noogu rido bunka noo cabino aan leenahay anaguna insha allahu tacaala cadowgeenu jebi doonaa aan leenahay ragga waaweyn axmed shal ka mid yahay rag kale markaan ka xishoonayo maana dalka idinka awladan rag aan ogahay oo ku jira rabshadaha adeer balaa looma yeedho maanta cidka si toon ma jirto shakhsiyaadkan la hadlayo anagu reer Hargeysa uma dagaalamayno wariyaan leeshiin ciidagada intii hore ku filan 94 tii hore ay isu qoomeynayaan marka adeer waxaan leenahay rabshada la joojiyo waxaan ahaan baleenayaa Suldaan Maxamed Suldaan xirtaqana yaan baan baleenayaa sidoo fiican u hadlay wala kala baxay doorashada wala kala baxay wala ogaaday ninka sabab Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku inuu dilu inuu qara علينا هاي ورشادنا ويدمانيسا نبض بكل دمانيسا عدي لها يقرن وهليسا هل كاسن هروق صعنا إن شاء الله تعالى عن كحما إن لو بيت تعسيدي ضد كده وعمل إلهي سبحانه وتعالى سووا بوكسدين دولدهم علينا هاي ضد كهالدر يشو ضد كده أنت وحنا سمري إيمان وحنا حلك سارية إفي آخرنا عبدالله إفرية تاجرية شيس ضد وحنا أي سارية أنا لو بتشير بان دعاء مرنا هنا يا ميدمان وقتها ما كان وحويه تذكر حكي الدنبينا إلهي بقى أخرك الحساب تمدونه وفكر أنت بقى تذكر أبوري في الملا أبوري في المهر تذكر كعي أي دوش كسارن تاي سمري ما قدين إلهي نقصي سلام عليكم.